Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan idin hayaa sheeko jacayl ah oo dhab ah. Sheeko jacayl oo dhab ah oo aad macaan, calaf iyo jacayl. Shantii galabnimo ayay si kedis ah u kulmeen Khaalid iyo Hoodo. Isla markaa waxa ay ku kulmeen goob hotel ah oo Khaalid ka shaqayn jiray, wuxuuna ka ahaa waiter amba saad u taqaanaan mudallib. Khaalid wuxuu ahaa wiil aad u wanaagsan, wuxuuna ka mid ahaa ardayda loogu jecel yahay jaamacadda. Khaalid waa bulshaawi xadaari ah. Khaalid waa danyar balse kama muuqato oo qalbiga ayuu qani ka yahay. Khaalid gelinka hore wuxuu tagaa jaamacadda, gelinka dambena wuxuu ka xoogsadaa hoteelka. Hoodo marnaba kama ay filanayn inay halkan oo kale ku aragto, balse waxay u qushooday siduu isugu kalsoon yahay una ilaashanayo shaqadiisa iyo waxbarashadiisa. Inkastoo markii hore qalbiga iskala hadashay oo ay istiri Khaalid muu iska kaa qariyo, Khaalid wuxuu aad ugu farxay aragtida Hoodo, wuxuuna u arkay inay tahay fursad dahabi ah, sababtoo ah weli qalbiga Khaalid muu soo bandhigin ujeedadiisa uu ka doonayo Hoodo. Khaalid wuxuu isku dayay inuu Hoodo u sheego inuu arrin muhiim ah u leeyahay, balse waxa jaaniskii uu ku guuldaray ka dhicisay. Hawsha waxaa ka dhicisay gabadh habaryar u ah Hoodo oo la socotay oo meel uu ka maro waayay. Fursaddani halkaas ay ku dayacantay. Hoodo waa gabadh akhlaaqad wanaagsan, qurux jidhkeedu laga ilaaliyo xubin la naco. Hoodo waa gabadh xishood badan oo hadal isla markaana waalidkeed ku soo koriyeen tarbiyad wacan, taasoo dhalisay inay Hoodo gabadh had iyo jeer asturan ay tahay. Waana hablaha dhifka ah ee ixtiraam badan jaamacadda loogu hayo. Koox uu Khaalid ka mid yahay ayay waxay abaabuleen in ardayda u baxdo dalxiis. Sidaa darteed Professor Aadan arrinta wuxuu ansixiyay, waana ka ogaaday dalxiiska. Abaar 5 subaxnimo ayuu Khaalid u kacay tabaabusho iyo is-diyaarin oo isugu diyaarinayo dalxiiska lagu magacaabo dalxiiska jacaylka. Waa koox dhalinyaro ah isla markaana ku duubay jaamacadda. Waa ay dhiganayeen, waxayna ka kooban yihiin 15 wiil iyo 10 hablood. Waxaa dalxiis iyo farxad leh loogu soo diyaariyay. Waxaa kooxda dalxiisayaasha hogaaminayay Professor ka tirsan jaamacadda. Dhammaan kooxdani aad ayay u xiiseynayeen dalxiiskan, waxayna in badan sugayeen waqtiga la baxayo. Waa maalin Salaaso ah oo qof kasta oo ka mid yahay dalxiisayaasha aroor hore wuxuu isku diyaariyay xiisaha iyo xamaasadda ay u hayaan awgeed. Waxay is diyaariyeen inay raacaan gaadiidka. Waqti waagu dhulkuna waa ay u rooban yahay. Goobta dalxiiska loo tagayana waa dhul badan dadku u dalxiis tagaan, waxayna caan ku ahaayeen bad, buuro, durdurro iyo dhul cagaaran oo geed ah. Saacaddu markay maraysay 6 subaxnimo, wuxuuna Professorku Aadan markuu hubsaday in ardaydu dhan tahay ayuu fadhiistay kursiga loogu talagalay. Dhammaan dalxiisayaashu waxay siteen sahaydoodii. Aad ayay ugu faraxsanaayeen dalxiiskan. Inay jidka ku sii jiraan, waxay gudaha baska ka bilaabeen hadallo kaftan ah. Dhammaan waa dhalinyaro, waxa farxadoodu u dheerayd
waxaa farxadooda u dheerayd lebis qurux badan ee ay xidhan yihiin. Muddo 3 saacadood ah ayay ku qaad. La soco qaybta dambe.